Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeyga iyo video cusub. Sida hore idinkugu sheeg, magacayga Socdi waaye. Meeshaan waxaan kasoo geliyaa anything oo ku saabsan parentingka, liano waxaa ahay hooyo cusub oo 2 cayaal haysato, cunug oo 19 months jirto iyo mid oo 3 months jirto. Marka haddaa interested ku tahay inaa waxyaalahaas oo kale daawatid, ha ilaawin inaad subscribe ii saartid, like ii saartid haddaa videoga ka heshid, oo ra'yigaagana hoos kusoo qortid commentiga. Marka sida hore aan uga hadlaynay, waxaan ka hadlaynay cayaalka waxyaalaha u keeni karo inay dabeecadahooda isbedelaan, liano haddaa cunug rabtid inaad tarbiyeysid waa inaa koodii ka hortagtid triggerska u keeni karo in uu like ku dhageysanin, si aadan u isticmaalin like inaadan ku qaylinin ama aadan dilin. Marka haddaa ogaatid waxa cunug u keenaa inuu dabeecadiisa xumaato, maxaa la dhihi jiray, waa ka hortagi kartaa in maxaa la dhihi jiray uu like wax xun sameeyo camal, adigana oo patience-kaaga waanin. So marka waxaa maraynay sensory overload. So waxaa laga wadaa like cunuga agagaarihiisa u keeni karo in uu maxaa la dhihi jiray dabeecada ka bedelmato, ama uu faazi noqdo, ama oo maxaa la dhihi jiray uu iska ooyo, liano maxaa la dhihi jiray waxaa la dhahaa toddlerska, cayaalka yaryar waxay jecel yihiin maalintooda in ay og yihiin wax kastoo soo socdo, liano markay aday oo gaaraan 18 months iyo meelahaas waxay like their own personality la soo baxaan, liano intay intaas ka yar yihiin waalid kale attachment zaaid ku yihiin, laakiin markay 18 months ay soo gaaraan waxay ogaadaan in ay their own personality haastaan. So marka taasaa wax u keenta cunuga in uu maxaa la dhihi jiray markasta isku dayo inuu isaga like control ka qaato, liano uusan rabin qof kale inuu controlo ama wax maanta dhan kan samee ku dhaho. So marka sensory overload waxay noqonaysaa like cunuga agagaarihiisa waxa u keeni karo in uu overwhelmed noqdo, taasoo u keeni kartana inay dabeecadiisa bedelmato. Marka waxaa ka mid like cunug oo hadda iskool bilaabo camal, maxaa la dhihi jiray liano meel cusub uu aaday, so taasaa u keeni karto inuu markuu guriga imaado inuu ooyo oo maxaa la dhihi jiray dabeecadda ay ka xumaato, ama hadduu oo cunuga meeshuu joogo camal organized aysan ahayn oo too much wax uu yaalo, taasna u keeni karta maxaa la dhihi jiray waxaana u keeni karo like meel oo qaylo badan oo maxaa la dhihi jiray noise oo zaaid u badan uu meesha yaalo, ama lightyaasha like hadda example book wuxuu soo qaadanaya concert mar naagta aadi ay ka hadlaya like how dadka like waalidiinta ee maalintaas dhan cayaalkooda u oonayo, markaas waxay dhahday wax cunuga u keenay inuu oonayo maanta dhan waxaa waaye like lightka kor ku jiro cunuga camal wuxuu ku jiraa strollerka marka kor u fiirina mogta korna waxaa ku yaalo lightyaal oo kala nooc oo maanta dhan blink gareenayo. So marka cunugii maanta dhan hadduu waxaas u jeedo balaas dadka meesha dhan qaylinayo, ilan concert waaye like heesi waxaas oo la sameynaa, so marka waxaas u keeni karo dhahday inuu cunugaaga maanta dhan uu faazi noqdo. So marka cunuga environmentigiisana way u keeni kartaa in uu dabeecadda ay ka xumaato. So like zaaid waa inaa ugu dadaashid cunuga meeshuu oo seexanayo, meeshuu ku cayaarayo, like in uu organized u ahaato, si oo maxaa la dhihi jiray like too much staffka camal uma fiicno. haddana hataa wuxuu cunuga ku baranaa sida hore idinkugu sheegay in uu qof noqdo oo maxaa la dhihi jiray muratab oo
maxaa la dhihi jiray organized oo wax kasta organize garanaya, laano maskaxdaada meesha joogtid haddee zaaid u qasantay ama waxyaalo badan kale yaalaan, maskaxdaada organized ma noqonayso, maskaxdaada kuma fikirayso inay wax sameyso. So marka cayaalkana saasoo kale environmentigiisana u keeni karaa in uu maxaa la dhihi jiray in uu dabeecadda ee ka xumaato. haddaadan daawanin videoyaashii hore oo lasoo dhaafay, waxaa ka hadalnay dietka, cunuga cuntada cunayo iyo waxyaalo badan. waxaa rajeynaa inaa gadaal u noqotid si aa u daabatid, si aa u fahantid waxaan maanta ka hadlay. marka intaas yariista maantana idinkugu talagalay. waxaa rajeynaa inaa wax ka faa'iideen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.